musharax Saciid Ibraahim Maxamed oo kamid ah musharaxiinta xisbiga wadani uga tartamaya golaha wakiilada ee gobolka Sanaag ayaa cudurdiisa taageero maanta ku soo bandhigay fagaaraha beerta xuriyada ee magaalada Cerigabo waxaana ka hor intii aan fagaaraha la gaadhin murashaxaasi taageerayaashiisa kala sii hadlay xarunta ololihiisa doorasho waxaan u mahad celinayaa taageerayaashayda mugga iyo miisaan kale runtii ila garab taagan inay taageeraan iyaga oo u soo banaanbaxay maanta in ay muujiyaan codkooda cududooda iyo quwadooda taasoo insha Allah taala aan rajayn doono in aanu 31 May u dareeri doono codbixinta isla galabtaana lagu dhawaaqi doono in aan noqdo xildhibaan golaha baarlamaanka ee Soomaaliland inta ka gadaal runtii waxaan aad iyo aad ugu hambalyeeynaa madaxda sharafta leh xisbiga wadani heer qaran iyo heer gobol iyo heer degmo waxa maanta inoo tahay maalin weyn oo aanu ku muujinayno taageerada aanu ku leenahay gobolka Sanaag guud ahaan gaar ahaan degmada Cerigabo waxaan runtii aan dareemaynaa farxad aad u ballaaran annaga insha Allah taala maalinta dhow ku guuleysan doona doorashada aan ka soo sheekeeyay taageerayaashayada waxaan leeyahay mar walba mahadsantihiin intaasi kadib taageerayaasha musharax Saciid Ibraahim waxa ay dowladdu socod lug iyo gaadiid ah ku soo mareen sharciyada magaalada Cerigabo kuwaas oo ku labisan korkoodana ku xardhay astaanta musharaxa iyo calanka xisbiga wadani waxaana taageerayaasha musharax Saciid Ibraahim oo si weyn isku soo abaabulay ugu dambeyntii ku soo biyashubteen fagaaraha beerta xuriyada ee magaalada Cerigabo oo ah halka loo asteeyay in musharaxiintu xisbiyadu ay ku soo bandhigaan ololahooda waxaana murashaxu kolkii ay gaadheen fagaaraha beerta xuriyada uu la hadlay taageerayaashiisa kulana dardaarmay inay miisaanka codka siiyaan 31 May ma ha dheeldheer miisaanku wuxuu sheegayaa ma ha dheeldheer waa calaamad muujinaysa meesha khayr jiro waa calaamad muujinaysa meesha khayr jiro miisaanku wuxuu sheegayaa ma aha dheeldheer waa calaamad muujinaysa meesha khayr jiro ninkii magansada jeer horuu eexdi meel dhigaye 30 May markaan maalinta istaagno miisaanka beegsada waa calaamad muran la'aaneed mintida oo hubsada oo gurida waa murashaxiiniye waxaa si gaar ah u salaamaya taageerayaashayda miisaanka waxaan leeyahay taageerayaasha wadani maanta waxaanu haysanaa fursadii aynu ku bedeli lahayn baarlamaanka hadda jira kuna heli lahayn aqlabiyad waxaan rajaynayaa inaan heli doono aqlabiyad aad u fara badan oo aynu kaga guuleysan doono xisbiyada kale ee la tartamaya waxaan u hambalyeeynaa runtii dadka muddada dhan bacadka noo taagnaa oo ugu horeeyaan taageerayaashayda miisaanka oo runtii hayl iyo hoo ila garab taagan ila hor taagan ila berber taagan oo aan leeyahay taageerayaal waa mahadsantihiin ilaahay haydin sharfo inta ka gadaal sida ogtihiin calaamadaydu waa miisaan miisaanku waa arin sheegaya cadaalad sinaan midnimo iyo qof kasta oo waxa uu haysto saluuga waxa kaliya ee halbeeg lagu qancin karo waa in loo miisaamaa waxaan rabnaa ummadda Soomaaliland haddii aynu nahay gobolka Sanaag saamiga aynu ku leenahay inaynu miisaan kaga qaadano Jaabir Saciid Jaabir Bulshaawi Ariel TV Cerigabo